wadista gawaarida waaweyn ee taraaga loo yaqaano waa shaqo inta badan ay qabtaan ragga. waxaase jira gabdho aan badnayn oo ku dhiiraday inay qayb ka noqdaan shaqadaasi u xiran ragga. wadna dhigeena daagaas dabada loo gelinayaa sidii oo kubaas camal tareelanka midkan adigaysa midkaas ka qaadanaysa shippingka waa halka receivingki waa inta halkaas ma dabada u gelinaysa alaabta lagaga qaaday. Farxiye Sheekh waa gabar Soomaali ah oo degan magaalada Toronto oo leh dhowr gaari oo kuwa waaweyn ee taraaga ah isla markaana wada mid kamid ah gawaarideeda. Farxiye oo aan la kulmay ayaan marka hore weydiiyay waxa ku dhaliyay inay qabato shaqadan. horta waxa igu dhiirigeliyay mostly meeshan dadka dhan waxa wada keenay waxay tahay lacag kowle marka dadka markaad ka shaqeynayso meelaha kale lacagta sameynaysa taraaga aad u badan tahay lacagta taraaga haddana aniga qof driverka hobbigiisa ah aan ahay waa driverka waa jeclaa inaan wax drive gareeyo marka maadaama aan family leeyahay I have to support my family and only way quick man lagu sameyn karo waa trackingka iyo weligeena waan jeclaa maaragtay mechanic track waxaas inaan noqdo waxa weligii barajeynay. wadista gawaarida waaweyn iyo ku shaqeyntoodu ma ahan mid fudud kumana sii jirto marka ay hawshaasi qabanayso qof dumara. Farxiye Sheekh ayaa sharaxaysa caqabadaha ay kala kulanto shaqadan. wallahi horta waa ila yaabaan marka hore maxaa meeshan ku keenay waxyaalo kale dumarka qabtaan jira maxaa ka soo doonta inta discrimination badan iska jira oo dhinaca dumarka ah markii naag la dhaho waa lagu yeesay marka hore waxaan maleyn jiray Soomaalida kaliya inay tahay cadaankiya ku jiro madowgiya ku jiro qof kasta markii dumar la dhaho shaqadan aan hadda wado waxa waa shaqo rageed waaye qof kasta wuxuu ku riyoodo maaragtay wixii uu rabo goolku rabo inuu gaaro hadduu nafsadiisa bush gareeyo uu gaarayaa. Farxiye ayaa tilmaantay in sidoo kale ay tababar siiso wiilal iyo gabdho Soomaali ah kuwaasoo rajaynaya inay ka mid noqdaan darawallada gaadiidka waaweyn. gabdho badan ku dhiirigeliyay oo maxay ahayd taraagada laysanka soo qaatay qaarna way soo koreen tababar baan siiyay qaarna maxay ahayd waa iska baqayaan jaabka laysankooda ku haystaan wiilal badan oo dhalinyarada tababarka siiyay maxaa kamid ah xataa dhalinyarada hadda isugeyso sometimes training sameeya. dhanka kale inay tahay gabadha kaliya ee Soomaali ah ee degan magaalada Toronto ee wada gaariga taraaga kama aysan reebin inay ka dhex muuqato ragga ku mihnada ah ee ka arinsada dhibaatooyinka ay kala kulmaan wadista gawaarida iyo sidii ay u ogaan lahaayeen xuquuqdooda.